ee dalka Mareykanka ayaa sanadkan 2020 marka la diyaar garowgoodu ka soconaya magaalada Columbus. Isku aadka kooxahan oo gaaraya ku dhawaad 30 kooxood ayaa la soo afmeeray maantay, waxaa inta badan ciyaartoydu ay ka kala imaanayaan gobolada dalkan Mareykanka iyo Kanada. Maamulka Ohio International Spring Cup ayaa sanadkan ugu magac daray koobkii haweenka iyaga oo ku suntay magaca 3 gabdhood oo lagu dilay gudaha Soomaaliya, kuwaas oo kala ahaa Saada Cali Warsame, Almas Elman iyo waliba Hodan Naaleeye. Inta badan dadkii ka hadlay ayaa fursad muhiim ah u arkayay qabashada koobkan sanad walba oo boqolaal dhalinyaro uga kala yimaadaan meelo kala duwan iyada oo la abuurayo isdhexgal dhalinyaro. Muhiimadda ugu weyn ayaa ah in dhalinyarada laga mashquuliyo waxyaabaha xunxun xilliga xagaaga oo inta badan waxbarashada fasax laga yahay, iyo in lagu dhiirigeliyo inay meel fiican ka gaaraan kubadda cagta. Qorituurkii ciyaaraha ee Ohio International Spring Cup-na sidan ayuu u dhacay. Marka waxaan rabaa inaan sheego inay ka soo qayb galayaan 24 team oo tiimka yar ah iyo 7 team oo ku waaweyn ah. Marka this is the first time in North America that tournament in indoor soccer that we have so many teams. wadanka aan ka imaanay waxa la dhihi jiray ilmaha waxa korinaya community-ga. wadankan ilmaha community ma korinayso. waa in responsibility-ga la qaataa. Most of us waxaan sameeynaa Soomaalideena qofkii xoogaa lacag hela ilmaha Soomaaliya u celinaya. waxaas dhan waxa laga carreeyaa waa responsibility-ga. You have to ina responsibility-ga u istaagtid. Cunugaaga iskuulku aadayo ilmaha la aado hooyadood ina la tirtantida laga rabaa. Dhalinyaradana howl badan ay soo wadaan Columbus inay diyaar u noqoto waay la caawiyo la garab galo. haddana iyagoo sida u dadaalayo amni haysto ayay intay ka doorbeen in North America tagaan waxay aadeen Soomaaliya saasaan loo dilay. marka mar walba inaan xusnaa waana mar walba fiirnaa qofka Soomaaliga ee wax qabadkiisu wanaagsan yahay ama dadka meel gaarsiin karo in lagu daydo inta aan ka shaqeynayno waa intaas. marka so far hadda annaga ciyaal yar yar ahaynaa aniga iyo Maxan Faarax iyo Gaduudow waxaa sii jeclaan lahayn more coach inay Adi Fataax uu nala joogaa isagana ma sha Allah. waxaa sii jeclaan lahayn dad badan kale oo coaches ayagana oo certified inay noqdaan isku dayaan community-ga inay wax soo kordhiyaan. marka waxa la dhalinyarta waxa weeyaan ciyaarto iyo spend time waa wax wanaagsan weeyii. waalidka waana time-ka siisiin maxaan ku rahayay caruurtiina siday sheegtay gabadhan Samsam waa muhiim weeyi inaad time la siiyo caruurta lagu spend garayo time iyo money ba. Deqsoona warbaahinta qaranka Columbus Ohio.